talabaad mid waan la yaabay oo aad iyo aad baan ula yaabanahay Soomaaliya inay qaadato marxuumka meydkiisa arintaa anigu waxaan u arkaa arin aad ila yaaba laba arrimood labadaba shaki weyn way leedahay kow waxa weeyaan ninkan waxa nin reer Soomaaliland weeye laba col buu la ahaa way isku may wanaagsaneen maamulka xamar maanta jooga noloshiisii bay coloobeen niman wanaag ka dhaxeeyana ma ahayn marka afduubka inta leeg iyo boobka inta leeg Soomaaliya ay meydkiisa boobtay waxaan u arkaa in maxaa la yiraahdaa arintaas shaki weyn ayay leedahay waxaan maqlayay in muxuu ahay qoyska yiraahdeen hal noo baaro oo bal ninkan odaygii sidoo dhintay waxyaabo caynkaasa annagoo runtii aad nooga mahad celinaya dowladda kilka Soomaalida Itoobiya oo runtii aad iyo aad arintiisa xil isaga saaray iyo sidii ay noola socodsiin lahayn marba halkii heerkii uu mariyay iyo muxuu ahay marxaladii uu soo maray laakiin muxuu ahay degdega ay xamar u qaadatay waxay leedahay shaki fara badan noloshiisiiba may jeclayn markaa dhimashadiisa sababtay u qaateen iyadoo weliba aan filayo inaan la baadhin oo muxuu ahay baadhitaankii aanu jirin aan filayo in degdeg loo aasi doono marka arintan waxaan arkaa inay tahay arin marka qof ahaan cali waran cadde oo telefishanku su'aalay bal in dawladda Somaliland ay dalbatay in meydka cali khaliif galeed la keeno Somaliland waxa uu yiri wallahi kulli de waa laga wada laakiin markiiba waxa dalbaday nimankaas iyagoo la ra'iisul wasaare hore ahaa ayay muxuu ahay halkaas ay ugu soo gabadeen laakiin arintaas inay shaki leedahay waan qabaa Soomaaliya boobka boobiso meydka cali khaliif la taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday doorashooyinka la filayo inay dalka Soomaaliya ka dhacaan gaar ahaan waa doorashada lagu dooranayo madaxweynaha Soomaaliya runtii horta doorasho maahay waxa weeyaan waa meesha wax moodaa in la isboobayo waxa meesha ku hirdamaya doorashada waxa wada dawlado kale oo shisheeya meesha wada meeshan aan waxaan aqaanaa meel aan madax banaanayn oo la hayo oo UN ku hayo oo xataa aan xorriyad haysan xorriyadii maanta dawladaha la hormarana waa xorriyadeeni 26kii June sanagu qabo marka waxa weeyaan dawladaha meesha ku tartamaya dawladahaas qolo waliba waxay doonaysaa mid iyaga babito ah oo ay ku shaqeystaan inay soo saaraan marka Soomaaliya doorasho kama socotay laakiin dawladaha ku dagaalamaya walo walba waxay eegi doonaa ka u xoog roonaada iyo babitku soo saaro ka u daba dhilfay ku shaqeysan soo saaro meesha dawladaha haysta ummado kala haysta ciidamo kala haysta meel madax banaan maaha waxaan maqlayay daraato taliyaha ciidamada ayaa la weydiiyay ciidamada ajnabiga ku jira waxa sharci waxaan sharci lahayn wuxuu ku jawaabay kala garan mayno waa wada darees bay wada leeyihiin tuuti marka meesha anigu Soomaali xukunta ma ogi laakiin dawladaha ku tartamaya danaha kale ay eegi doonaan balqolada u xoqronaatay shirweynihii kulmiye adiga oo la filayay inaad ka dhex tartanto waa laga waayay dadka qaar ayaa la malaha dhinacii wuxuu u jeestay siyaasiyiintii shirka qaadacay dadka qaar ba waxbay sheegayaan bal waran aad baad u mahadsantahay laakiin waxa weeye shirka waa joogay waxaana dadkii ka midka ahaa ee joogay runtiina waxa jirta nidaam buu leeyahay xisbigu marka mar walba ninka musharax muxuu ahay madaxweynaha labadiisa teeram ama waqtiga uu leeyahay hadaan isagu ka tanaasulin isaga xaq u leh muxuu ahay in lagu dhiso Mareykanka wadiga arko nidaamkan dawladaha inuu qaadanay sidaas weeye marka anigu waxaan u taaganahay markuu hawshiisa ka dhameystaa madaxweynaha madam